murankaas wuxuu ahaa muran caadi ah oo afdhaaf ka dhashay qoyska ah kaasoo ah motifkii ama sababtii keentay dilka uu geystay eedeysanuhu taariikhda aan kor ku xusay ee ah 26 January 2024 habeennimadii markay ahayd 9kii habeenimo ayuu yimi guriga iyadoo xaaladdu ay iska degan tahay wax dhibaato ah aysan ka jirin isla markaana waxa ka bilowday ismaandhaaf la xiriira hadallo la isku celceliyay ismaandhaafkaas wuxuu isu bedelay in uu hadalkii ugu argoosto inuu nafta seejiyo marxuumad Luul Cabdicasiis ilaahay u naxariistay sagaalkii markuu yimi habeenimo qadar 9:20 daqiiqo ah qiyaastii ayuu ka baxay guriga murankaas isagoo xanaaqsan hadallo la isdhaafsaday waxa uu tagay kaalin shidaal oo la yiraahdo al-aamin kaalintaas shidaalka ayuu wuxuu ka soo katay shidaal ama baasiin hadba kii loo yaqaan waxa uu galay guriga isla markiiba muddo 10 daqiiqo wax ilaa 7 daqiiqo ku siman waxa uu galay marxuumadda oo qolka ku jirta waxa uu ku bilbilay korkeeda markuu ku daadiyay ku bilbilay ayuu wuxuu qabadsiiyay dab markuu dabkii qabadsiiyay ayuu ku soo xiray qolkii uu dabka ku qabadsiiyay waxay ahayd Luul Allah u naxariisto maamo korisa 8 ciyaal ah ilaa 7 ciyaal ah oo agoon ah oo uu guursaday oo ay uur u lahayd oo markaas xaamilo iyo walac isku jira ah tabarna aan lahayn ayay ahayd maamadaas kadib markuu intaas oo ficil uu geysay eedeysane Sayid Cali wuxuu go'aansaday inuu ka fakado goobtii iyo gobolkaba waxa uu u baxsaday eedeysanuhu intaanan u gudbin baxsashadiisa mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh maxaa sababay dilka muxuu yahay motifka ka dambeeya ama sababta keentay inuu dhaco dil nuxurka iyo baarista iyo gabagabada hay'adaha booliska iyo xeer ilaalintu ay ogaatay ayaa ah inuu ahaa muran dhex maray oo kaliya nin iyo xaaskiisa waxa dhex mari kara mar walba muran dhex maray oo kaliya ayuu ahaa baaritaankii ugu dambeeyay intaas ayaanu ku ogaanay waxa ka horeeyay muranka ama baasiinka intuusan ku shubin mudane gudoomiye waxa ka horeeyay fal gacan qaad ah muranku wuxuu dhalay fal gacan qaad ah gacanta la isula tagay kadib buu baxay baasiinka soo gatay sameeyay ficilka arxan darrada ah mudane gudoomiye waxa sababay horta waa intaas waxaan rabaa kii bishii koowaad 2024 oo ah taariikh ka horeysay laba beri dilka barxuumadda ayaan rabaa maxkamadda sharafta leh furfurashadeeda inaan ugu daro hadal yar ama dhacdo yar oo dhacday 24 January waxa dhacday in eedeysanuhu uu isku dayay inuu dilo marxuumadda waxa uu soo qaatay letter ama sigaar baalka loo yaqaano sigaarka lagu cabo waxa uu soo qaatay carfiso ayada oo qolka mid ku jirtana ayuu wuxuu kaga buufiyay madaxa dabna inuu qabasiyo damcay way ka baxsatay waxaan kor keeni doonaa maxkamadda marxaantiyaal arintaas cadeyn doona hadii Ilaahay yiraahdo mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh dhacdadaasi markay dhacday eedeysanuhu wuxuu u baxsaday isla markii uu falka geystay albaabkana kor kaga soo xiray dabcan xiritaankaasi wuxuu ahaa si aan baaritaan ku ogaanay handaraabka ma gelin laakiin uu ku soo qabtay ilaa ay si fiican u gubatay
مسيدين عبار بكوهي هندراب ما دام وهان دليرة حوق له أيضا إن قف حاملة ولا عصن ومقرنا إسكان حنا نوصليت سيدا أنا كسوق بنتو إنه عظيمها أنا سوق الدنيا waxa uu baxsaday isla markiiba gaari ayuu ka qaatay geerish u dhow ugu jiray wuxuuna aaday suuqa xoolaha guri ku yaal halkaas oo uu ku dhoomaanaysanayay ilaa markii dambeeto uu ka baxay qaab qarsoodiye oo dhoomaanaysiina uu ku aaday gobolka galguduud halkaas oo ugu dambeyntii 5tii bishii 2024 waqti badan iyo juhdi badan iyo kharash badan iyo ciid iyo dadaal badan oo ay geliyeen dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo dawlad goboleedka galmudug lagu soo qabtay isla markaana lagu keenay magaalada Muqdisho oo ah meesha falka dhacay mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedeysanaha falkaas geystay xafiisku waxa uu ku soo eedeeyay qodobka 434 ee heerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dil kas ah geysasho fal dambiyeed kas ah ama ku talagal ah intention falkaas uu geystay eedeysanahaasi waxa ka dhashay natiijada ah dhimashada marxuum Duluul Cabdicasiis raxmatullaahi rahmatan wasi'a qodobka 39aad faqrada 3 oo u dhigan markii uu dil dhaco dilku waa ka siman yahay mudane gudoomiye magaca guud laakiin uu kala duwan yahay qodobkani wuxuu waafaqsan yahay faqrada qodobka 39aad ee ah sifaalaha dambiga culaysiya qodobkaas oo u dhigan qof kasta oo qof dila habka uu dilana ay tahay u dhaqanka si ka baxsan bini'aadantinimada ama ula dhaqmo qofka si arxan darro ah intaas uu qodobkaasi cadeynaya faqradaasi cadeynaysa markaas aan waxaan ku soo eedeynay maadaama uu ficilkani ficil ku dhacay si ka baxsan bini'aadantinimada oo arxan darro ah isla markaana uu dil yahay sidaas ay isku qaadanayaan labada qodob oo ah qodob dil ah iyo qodob dambiga cuslaynaya